qofka caafimaadkiisa la dabarayo noloshiisa la dabarayo dadkaas maxay ugu jawaabaysaa quruxdu maxay tahay quruxdu waynaga wadan baynu leenay dhulkeenniina ku kalsoonaano wey laakiin quruxiyo dadkan sawiraanta saas u soo galayay ayna inamadii raad diray ay inamadiina badaha isku soo daadinayaan xalay ka daaya marka quruxda badan dad baa samaystay waxba ma dhixiyaalaan adiga faa'iido kuma laha qofka wixii adiga faa'iido ku leeyahay adeegooyi hadda marka maxaad leedahay waxa weeye waa boqolkiiba ku qanacsatay go'aankan maada gaadhayo boqolkiiba ku qanacsanay ana gaadhay mise familiga iyo cid baa kugu talisay ana gaadhay ada gaadhay hadda markaad Hargeysa ku laabatay insha Allah maxaad kugu qorshaysan doonaysaa samayso waa shaqaysanaya shaqooyinkii waa qabanaya maxaad ka shaqayn jirtay maxaad ka shaqayn jirtay buhaadida wali darawal baad ما شاء الله ما يحوي قف كسته ودكيسي waxa uga qaalisan ma jiro waxa kale aan aad iyadana anigu faraxsanahay maanta waa 17kii bishii shanaad 2016 birna waa 18ka hadda maanta halka markaad ka duusho halkaad ku degaysaa waxaan ku degayaa Istanbul Turkiga kadibna waxaan ku degayaa Addis Ababa اوكي ستيتونكمي سويسرلاند ka qayb galay ستيتونka dabana waxa ستيتونكمي inay Hargeysa ka qayb galay insha Allah Hargeysa gobolka ku aadintay Hargeysa gobolka ku aadintay iyo shanbay Britole Britole marka waxa ka dhiganta taas macnaheedu waxa weeye Britole ستيتونka may ilaahay dhaado habeen dababa waxaad ku aadintahay Hargeysa Hargeysaad ku xustaa ستيتونka may miya waaw ما شاء الله وين هرس حق هرس dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan kaas waa Xuseen Dayib aan usbuuci ka hor soo shaaciyay inuu ku laabanayo wadankiisa isagoo joogay xarunta immigration-ka ee wadanka Switzerland dhalinyaro badan ayaa lahayd uu iska hadlayaa ama uu kaftamayaa laakiin maanta waa kaas airport ka dhex jooga waa ka bidix u gal bidix waxaan aad ugu faraxsay bidix waxaan aad ugu faraxsay wadankiisa hooyo tagi doono ma sha Allah waxa weeye waa waxa lagu faano waxa kale oo halkan aan joog Xuseen joog فرور غدا صار ماشي على الجلسة وكا ضيب حسين ما أنت إن شاء الله تعالى وبحدونا بدك يسوي ما أنت تقدونا بدك يسوي هويو لما أنا مدة dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasto ay dunida ka joogaan waxaan u sheegayaa qofka wadankiisa hooyo inuu tago wax maaha la yaab noqonayso oo la yaabo halka waxaan fariin aan jecelahay inaan uga gudbiyo halka waxaan jecelahay fariin uga gudbiyo dhammaan mas'uuliyiinta iyo dhalinyarada ku nool wadankii Soomaaliland iyo dhammaan meel kasta ummadda Soomaaliyeed degto dayib waraaqihiisa uu kala shaandheynaya waxaan bartan fariin gaar ah aan u marinayaa dawladda Soomaaliland ugu horeeyo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland wasiirka dibadejinta wasiirka dhalinyarada ciyaaraha waxaan jecelahay maadaama wiilka dhalinyaradii uu door biday wadankiisa hooyana ku laabto wadankiisa hooyo ku qanacsan yahay waxaan jecelahay bal inay si fiican oo niyada u soo dhaweeyaan si fiican dibadejin fiican u sameeyaan si wiil kastoo dhalinyaro oo meeshan ku dhibaataysanay uu markuu dayib noloshiisa arkay wadankiisa hooyo si fiican loogu soo dhaweeyay dibadejin fiican loo sameeyay shaqo fiican oo ka helayna
dhalinyaro badan oo mustaqbalkooda meeshan ku baaba'ayo sharciyadii loo diiday oo nolosha ka dhacay ay bal ku hamiyaan waddankooda hooyo inay laabtaan waxaan jeclaan lahaa inay taas aad u dhiirigeliyaan waxaa kaloo aan iyagana aad ula daaranaya dhalinyarada ka shaqaysa qaybta laanta socdaalka ee Somaliland ugu horeeya Cumar Rambe ama Cumar Henry inuu si fiican soo dhaweeyo wiilkan biri 12 iyo barka ayuu ku aadan yahay Cigaal International Airport waxaan mar labaad iyadana doonayaan bartan kala hadlo suxufiyiinta ka howlgala magaalada Hargeysa sida Universal Sagal Mustafa Xasan Nuur Somali Cable ninka la yiraahdo Faisal FIFA iyo Cable-ka Home Cable TV caynta iyo kuraasi inaad qayb ka qaataan wiilkaas soo dhaweyntiisa inaad qayb ka qaataan wiilka dibadejintiisa waayo hadda dhalinyarada nahay inaan mar walba ka sheekeyna ma ahan dhaana Europe waa sida caynka taariikhda waa sida waa in wax la taaban karo dhalinyarada loo sameeyo wiilka dhalinyarada maanta waddankiisa ku soo noqonaya waa wiil Hargeysa dayib Hargeysa ka degaysa Soomaa Hargeysa ka degaya insha Allah ta'ala marka waddanka ka degto kulli saxaafadan wad la kulmi doontaa markaas insha Allah ta'ala wixii waddanka aad kala kulantay sida lagu soo dhaweeyay cid majeesho wixii aad qabatay iyo sida ugu faraxsan tahayna insha Allah wadana soo xiriir doontaa video clip kaas wuxuu ahaa Maxamed Cabdilaahi Cawad wariyaha ama saxaafadda dabadiisa airport-ka Zurich